maamulka gobolka Gado ayaa ku dhawaaqay qorshe ay ku soo xirayaan wasiirka amniga maamulka Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi sida uu warkan ku dhameystirayo Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutawakkil. Cismaan Nuur Xaaji gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in hadda ay bilaabeen qorshooyin kala duwan kuwaas oo ujeedkoodu tahay in nolosha ay ku soo qabtaan wasiir Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ahaan wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland iyo Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland kuwaas oo uu sheegay haddayna ku dhuumaalaysanayaan deegaano xuduudka iyo weliba magaalada Mandera ee waqooyi bari dalka Kenya. Cismaan Nuur Xaaji ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal shalay ka dhacay deegaano dhaca gobolka Gado ee Koonfurta Soomaaliya waxa uu sheegay in laba ka mid ah ciidamada Jubbaland nolosha ay ku qabteen kadibna ay u soo wareejiyeen sida uu sheegay dowladda federaalka Soomaaliya Muqdishona lagu maxkamadeyn doono. Waxa uu sheegay in hadda ay wadaan qorshayaal kale oo kala duwan kuwaas oo qaarkood ay lagu soo qaban doono sida uu sheegay ciidamada daacadda u ah sida uu sheegay Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo weliba wasiirkii baxsadka ah ee Cabdirashiid Janan. waxaana uu sheegay in ciidamadaas qaarkood iyagana hadda la qorsheynayo in la soo qabto balse muhiimadda koowaad ay siin doonaan wasiirka baxsadka ah iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland. dhammaantood waxay ku xariisan yihiin gudaha Madeerana waa wada hadalnaa waan u dirnay waxaan ka rajaynaynaa madaxda Madeera waxaan ku raadaa koontiga degan ee sida gafanaaga iyo maxaan ku raadaa mas-uuliyiinta kale oo degan Madeera in ay nabadgelyada wax maxaan ku raaddaa aada loogu wanaagsan ah in nabadda laga shaqeeyo xuduudda dalka Soomaaliyana annaga aan ka shaqeyno xuduudda Kenya ay ka shaqeeyaan dowladnimadana la wada ilaaliyo dadka ku dhuumanaya meeshaas dhibaatada ka wada oo Kenya dhexdeeda ugu soo duuliyana in ay iska soo saaraan maxaan ku raaddaa Kenya waa ka wada hadalnay waana ka rajaynaynaa inay iska soo saari doonaan haddii ilaaha ka noqdo hadday Kenya iska soo saari waayaan insha Allahu tacaala annaga kala soo baxayno oo ku soo baxayno halkayda. ciidankii la dagaalamay ee dowladda Soomaaliya halkee bay walaal ciidan badan ma oo sodan askari hayeen maanta hal mid oo ka dhintay labada waa ka dhaawacmeen labada dhaawac ee isbitaal baan geynay dowladana u qaatay waxaan ku raadnaa soo qaadnay xamar sababta dhalinyaro la qalday hayeen waxaan ku raadnaa maskaxda laga dhumiyay midna meeshaydii uu isku dhiibo oo askarta waa askartaydi qalad baan galay uu yiri hadana ciidankiisu la jooga afartaas ay hayeen sana waa areen oo ciidankii kale oo 20 ka ahaa oo ku jiray Madeera dhexdeeda. wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya qoraal ka soo baxay ayaa looga digay dowladda Kenya inay soo farageliso xilligan arrimaha gudaha iyo ammaanka dalka Soomaaliya waxaana hadda la sheegayaa in wada hadal hoos u socdo mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Gado ee Koonfurta Soomaaliya iyo weliba saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya si gacanta loogu dhigo Cabdirashiid Cabdinuur Xasan Janan wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland kaasoo xabsi ku yaala ama xabsi gacanta ay ku haysay dowladda federaalka Soomaaliya ka soo baxsaday ciidaamiyada dagaal ka dhan ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya inuu ka geli doono deegaano dhaca gobolka Gado ee Koonfurta Soomaaliya iyo Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland kaasoo maalmihii ugu dambeeyay abaabul ciidan ka wada deegaano dhaca gobolka Gado ee Koonfurta Soomaaliya. barkac xoogan ayaa ka bilowday magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado ee Koonfurta Soomaaliya. wararka laga helayo gobolka Gado ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in barkac xoogan uu ka bilowday xaafado ka tirsan magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado. wararka ayaa intaa waxa ay ku darayaan in dadka ku dhaqan magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa sheegaya in dadka ku dhaqan magaaladaasi ay ka cabsi qabaan in gudaha magaalada ay isku farasaaraan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland oo ku sugan duleedka magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado. wararka ayaa intaa waxa ay ku darayaan in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ay ka jiraan magaaladaasi kuwaasi oo u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. shalay ay ahayd kadib markii iska horimaad xoogan uu ka dhacay gudaha magaaladaasi oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. al-shabaab ayaa ciidan ka tirsan kuwa Itoobiya oo baxsad u ahaa dalka Itoobiya ku dilay duleedka degmada Waajid ee gobolka Bakool sida warkaani ku faahfaahinayo Nuuridiin Xasan Ibraahim Shardi. wararka laga helayo gobolka Bakool ayaa sheegaya in xarakada al-shabaab duleedka degmada Waajid ee gobolka Bakool ay ku dileen askar ka tirsan kuwa Itoobiya oo qaybta ka ah kuwa howlgalka midowga Afrika ee AMISOM.
dilalka al-shabaab ay u geysteen askartan ayaa timid kadib markii ay ka baxsan rabeen garoonka diyaaradaha ee magaalada waajid ee gobolka bakool halkaas oo ku yaalo saldhig ciidanka ethoobiya ay ku leeyihiin halkaa iyagoona ka baxsaday xero ciidan oo ciidanka ethoobiya ay ku leeyihiin halkaasi wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in rag ka tirsan dhaqaaqa al-shabaab ay waddada u galeen labadaasi askari islamarkaana ay toogteen askarta etoobiyaanka ayaa baxsad u ahaa waddankooda iyagoona doonayay inay ka baxsadaan saldhig military oo ciidanka ethoobiya ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada waajid ee gobolka bakool qoraal ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay inay toogteen askartan ka tirsan ciidanka ethoobiya xilli ay doonayeen inay ka baxsadaan saldhig ciidanka ethoobiya oo ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada waajid ee gobolka bakool una baxsan rabeen dalka ethoobiya kadib markii ay ku adkaatay ayay shabaab yidhaahdeen nolosha go-doonka ay ku jiraan islamarkaana ay toogteen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ayaa lagu yiri qoraal al-shabaab barahooda internetka ay ku baahiyeen dhacdadan ayaa ah mid aad ay ula yaabeen bulshada ku dhaqan deegaana ka tirsan gobolka bakool mana jiraan wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa ethoobiya ee ku sugan deegaana ka tirsan gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya xiriiro kala duwan aan la sameynay maamulka gobolka bakool ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka bakool ayaana suurtagelin si aan wax badan ugu ogaano askartaas ka tirsan ciidanka ethoobiya ee labada gaalaya ee lagu dilay duleedka degmada waajid ee gobolka bakool shirka madaxda midowda afrika ayaa maanta la filayaa inuu ka furmo magaalada adis ababa ee dalka etoobiya dhinaca kale midowda afrika ayaa malaayiin dollar ugu deeqay dalal ay ka mid tahay soomaaliya mahad maxamed cabdulle ayaa qaadaa dhigaya shir madaxeedka midowda afrika meertadiisa 33aad ayaa saacadaha soo aadan waxaa la filayaa in uu si rasmi ah uga furmo magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin inta badan hogaamiyayaasha dalalka afrika iyo madax kale shirka midowda afrika oo meertadiisa 33aad ay ka furmaysa adis ababa ayaa waxaa sanadkan looga hadli doonaa qodobo ku saabsan xal u helidda caqabadaha ka jira qaaradda afrika gaar ahaan sanadkan shirka midowda afrika ayaa diiradda lagu saari doonaa joojinta xasaradaha ka jira qaaradda afrika gaar ahaan xiisadaha dalka liibiya iyo hubka sharci darrada ah wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shalay galinkii dambe si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya iyadoo halkaasi ay ka socoto diyaargarowgii ugu dambeeyay ee meertada 33aad ee shirka sanadlaha ee midowda afrika sidoo kale mas-uuliyiinta ka qaybgalaya shirka ayaa waxaa ka mid ah xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres iyo justin trudeau oo ah ra-iisul wasaaraha dalka canada waxaana shirkaasi ku weheliya wasiirkiisa arrimaha dibadda francos philip iyo xubno kale oo ka tirsan golihiisa wasiirada mas-uuliyiinta heer wasaaradeed ee gaaray adis ababa ayaa waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ambasador axmed ciise cawad oo halkaasi uga qaybgali doona meertada 33aad ee shirka midowda afrika kaas oo socon doona muddo 2 maalmood ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa la filayaa in kulamo doceedyo uu la yeelan doono wasiirada arrimaha dibadda ee qaybta ka ah shirka ka furmaya magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya. agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo si kooban ula hadlay warbaahinta isagoo ku sugan Addis Ababa ayaa faahfaahin ka bixiyay ka qaybgalka shirkaasi ee madaxweyne Farmaajo shirka midowga Afrika iyo sidoo kale waxyaabaha sanadkan looga hadli doono shirkan oo sanadkii mar la qabto. meertadiisa 33aad kii uu garoon ka soo degay waxaa toos loogu gudbiyay xarunta midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa halkaas uu ka socday shir u gaar ah goboleedka IGAD oo heer shir madaxeed ah waxaana si gaar ah loogu lafaguray xaaladda haatan ka taagan Suudaan iyo sidii xal waara loogu heli lahaa iyo sidii heshiiskii ay hore u gaareen lagu dhisay xukuumad midnimo qaran looga dhabeyn lahaa maadaama wax 2 usbuuc ka yar ay ka harsan tahay xilligii loogu talagalay in lagu dhaqan geliyo heshiiskaas. madaxweynaha waxaa safarkan hawsha halkan u jooga ku heliyay wasiirka arrimaha dibadda Danjire Axmed Ciise Cawad, wasiir dowlaha madaxtooyada mudane xildhibaan Cabdiqaadir Shaqaale Baghdadi, agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo safiirada IGAD iyo halkan African Unionka u qaabilsan dalalka Itoobiya iyo Djibouti. madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa si rasmi ah maanta ula wareegi doona kursiga shirgudoonka golaha midowga Afrika waxaana uu booskaasi kala wareegi doona dhigiisa Masar Abdulfataax Al-Sisi oo isna kursiga shirgudoonka horey ugala wareegay madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame. sidoo kale
kulamo hordhaca oo xalay Addis Ababa ku yeesheen mas-uuliyiinta sare oo ka tirsan ururka midowda Afrika ayaa lagu shaaciyay in ururka uu $100 milyan oo dollar ugu deeqay dadka barakacyaasha ah ee qaaradda Afrika iyo dib u dejin rasmi oo dadkaasi loo sameeyo. Soomaaliya ayaa qayb ka ah dalalka deeqdaasi la gaarsiin doono iyadoo kumanaan ruux ay barakac ku yihiin gudaha Soomaaliya isla markaana ay u baahan yihiin dib u dejin rasmi ah. shacabka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa walaac ka muujiyay wadooyin hor leh oo ciidanka dawladda ay xireen, sidoo warkan mar kale ku eegayo Nuurudiin Xasan Ibraahim Shardi. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa xiray wadooyin hor leh oo ku yaala deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo saameyn ku yeelatay shacabka ku dhaqan deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. nabadoon Cumar Maxamed Cabdi oo kamid ah dadka deegaanka oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in meelo badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka amniga dowladda Soomaaliya ay xireen, isaguna tilmaamay intaas saameyn xoogan ay ku yeelatay dadka shacabka ee ku dhaqan deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana hakad u galay isku socodkii gaadiidka iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. meelaha ugu badan ciidanka dowladda Soomaaliya ay xireen ayuu waxa uu sheegay inay kamid tahay buundada Sabiibi Caanole, isaguna tilmaamay in tani hakad ay gelisay oo qudaartii ka imaan jirtay deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana soo gaari jirtay magaalada caasimadda ay Muqdisho. waxa uu ugu baaqay saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose inay soo farageliyaan sidii dib loogu furi lahaa wadooyinkan ciidankan ay xireen. waxaa kamid ah buundada Sabiibi Caanole oo afgooda u jirta 12 kilomitir ama 10 kilomitir u jirta iyo degmada Oodbegle ayaa maaragtay sabab u ah maaragtay ayaa u daran meelaha maaragtay naga xiran oo aad uga camarayna buundooyinka, gaar ahaan weliba buundooyinka in loo fasaxo waayo dadka gobolka ku nool oo qudaarta iyo maaragtay gaadiidka u maraan nahay. haddii marka buundooyinka naga xiran yihiin safaro dheer ayaana galay ku yeelatay. hadda roobabkii hadda lasoo dhaafaaniyo haba u darnaadeene waa inay maaragtay u darnayd oo iyadoo maaragtay bari qalalan tahay ayaa dadkii deganaa webiga qoraxsinkiisa oo buundooyinta kasoo gudbi lahaa meelay usoo maraan waayeen oo waayo buundooyintii aba ka xiranba. kii marka bari joogana ee dhulka oogaa u qalalan yahay waa la joogaa haddana bariba haddana roobku ka tahay qoraxsin baa haddana qalashay. kii bari jooga haddana qoraxsin waa u gudbi waaye. buundooyinkana waa taqaanaa qaymaha ay ku fadhiyaan iyo maaragtay qaymaha weyn ku fadhiyaan oo webiga ayaa lasoo gudbaa xagga gaadiidka iyo xagga dadweynaha. si arrintan wax badan ugu ogaano waxaan la xiriirnay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka gobolka Shabeellaha Hoose si ay kaga jawaabaan arrimahan ay ka cabanayaan bulshada ku dhaqan deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo aan ilaa hadda saraakiisha aysan jirin war ka soo baxay oo ku aadan arrintan wadooyinka hor kale oo ciidanka dowladda Soomaaliya ay ka xireen deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. waxaana tani loo maleynayaa in ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku sugayaan amniga deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo gobolka Shabeellaha Hoose uu ka soconayo howlgalla ay wadaan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya kaasoo lagu xaqiijinayo ammaanka deegaana iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolkaasi. shirka baarlamaanada carabta adduunka oo Soomaaliya uu kaga qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa warmurtiyeed laga soo saaray. Maxamed Cabdiqani Salaad ayaa ambaqaadaya. wafdi ballaaran oo hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa magaalada Ammaan ee caasimadda Jordan uga qayb galay shirka baarlamaanada carabta adduunka. shirka ay yeelanayaan baarlamaanada carabta adduunka oo lagu qabtay magaalada Ammaan ayaa waxaa looga hadlay qorshaha uu saxeexay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee uu ku tilmaamay heshiiska qarniga. gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa inta uu shirka socday khudbad u jeediyey ee uu kasoo qaybgalayaashana u jeediyey waxa uu tilmaamay in aysan jirin sabab looga baahan yahay waxa loogu yeero heshiiska qarniga ee uu Donald Trump-ka Mareykanka saxiixay. gudoomiye Mursal ayaa waxa uu sheegay in aysan marnaba aqbali karin qorshe lagu cuuriyaaminayo dadka reer Falastiin ee uu sheegay in ay sanado badan dhibana u yihiin dowladda ama dalka Israa'iil. shirka ayaa marka uu dhammaaday waxaa la soo saaray warmurtiyeed, waxaana warmurtiyeedka warbaahinta u akhriyey xildhibaan Cali Jaamac Jingeli oo qayb ka ahaa xildhibaanada shirka ka qayb galay ee la socday wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. waxaana uu sheegay in aan la aqbali karin heshiiska cadaaladda ka fog oo aysan raalli ka ahayn Falastiiniyiinta
si looga hortago hagardaamada Israa'iil ee shacabka Falastiin. inaan la aqbali karin heshiis cadaaladda ka fog falastiiniintuna aysan raalli ka ahayn in xalku ku jiro wadahadallo dhaba si looga hortago hagardaamooyinka Israa'iil waxaa lama huraan in falastiiniintu ay heshiiyaan oo khilaafkooda xalliyaan. 4 in boqortooyada Urdun ay mas'uuliyad gaar ah iska saarto goobaha barakaysan ee magaalada Qudus. 5 waxaa ka qaybgalayaasha shirku diideen in la taabto ama meesha laga saaro xaqa ay leeyihiin dadka qaxootiga ee falastiiniinta ee dhulkoodii laga saaray, xaqa ay leeyihiin dalkooda inay ku noqdaan in la xaqiijiyo oo ay muhiim tahay, waayo malaayiin falastiiniina ayaa dalkoodii laga saaray. toddobaad ka hor ay ahayd markii ururka jaamacadda carabta ay si toos ah u diideen qorshaha nabadeynta uu dardar gelinayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib kulan degdeg ah oo ay ku yeesheen magaalada Qaahira ee xarunta Masar ayaa waxay sheegeen in arrintan aysan xal u ahayn horumarinta nabadda ee uu ku dhawaaqay Trump ka hor dagaalkii Carabta iyo Israa'iil sanadkii 1967 wixii ka dambeeyay Israa'iil waxay qabsatay magaalada Gaza, daanta galbeed iyo qaybo ka mid ah Daarusalaam waxaana ay wadaa qorshe caasimadeeda koowaad uga dhigayso Qudus walow shucuubta islaamka arrintaasi ay si weyn uga hor yimaadeen. tirada dhimashada caabuqa corona ee dhulweynaha Shiinaha ayaa sare u kacday 811 qof sida ay maanta ku dhawaaqday guddiga caafimaadka qaran ee dalka Shiinaha. ruux u dhashay dalka Mareykanka iyo mid u dhashay dalka Japan ayaa noqday shisheeyihii ugu horeeyay ee cudurka ku dilay dalka Shiinaha. guddiga caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa shaaciyay in cudurka uu dilay 89 qof tan iyo shalay ilaa iyo xalay oo 81 ka mid ah dadkan uu ku dilay gobolka uu kasoo bilowday. dhimashada 20 qof ka sokow waxaa weerarka ku dhaawacmay 42 qof oo 21 ka mid ah la dhigay isbitaal. tirada dhimashada ee coronavirus ayaa ka sare martay tirada dhimashadii xanuunkii SARS ee 2002 iyo 2003. shirkadaha waaweyn ee dulimaadyada ayaa hakiyay safarada ay ku tagi jireen Shiinaha iyadoo dalal badanna muwaadiniintooda kasoo daadgureynayaan dalka Shiinaha ee caabuqa corona dartii.